kulan wacan wanaagsan daawadayaal markasta anaga daawanaysaan ku soo dhawaada warka Samareeb TV qodobada warka Samareeb TV ugu door kulanaya waxa kamid ah Djibouti oo la haysto dad rayd ah oo lagala baxay guryahooda dowladda Qatar oo si adag u cambaareysay qaraxii shalay ka dhacay magaalada Muqdisho gudoomiyaha gobolka Gedo oo xilka ka qaaday gudoomiyihii degmada Doolow iyo waliba xiisad dagaal iyo hub aruursi u dhaxeeya laba beelood oo saakay ka socda Xanan Buure oo ka tirsan gobolka Galgaduud daawadadan oo cusubtaan ugu soo biir subscribe saarga malkan fursad u shidoo warkii ugu dambeeyay halkaan soo dhigno ومالنما حدا taariikhda ay ku beegantay 26 bisha September 2021 kun soo dhawaada qodobadaas iyo kuwa kala dhameystiran madaxweynihii hore ee dalka Nigeria Olusegun Obasanjo iyo wafdi ballaaran ayaa maanta soo gaaray magaalada caasimadda ee Muqdisho qaar ka mid ah mas'uuliyiinta dowladda Soomaaliya ayaa garoonka aadan cadde ku soo dhaweynaya madaxweynihii hore ee dalka Nigeria iyo xubnaha la socda midowga Afrika ayaa u magacaabay Olusegun Obasanjo ergiga geeska Afrika ee xasilanta iyo nabadeynta shaqada ergiga ayaa ah in uu kala shaqeeyo dhinacyada jilayaasha siyaasadda ee dalalka Afrikada bari oo ay ka mid tahay Soomaaliya oo xilligan wajahaysa xaalado kala guur ah walow ay xukuumadda federaalka Soomaaliya taabagelisay doorashada aqalka sare halka Ethiopia ay dagaalo u dhaxeeya Tigreega iyo ciidamada Ethiopia Olusegun Obasanjo ayaa ah madaxweynihii 8 jeer oo isku xigta si dimuqraadiyad leh loo doortay ee Nigeria ka hor inta uusan ku wareejin Umar Yar'Adua xaalad adag oo dhanka nolosha ayaa lagu soo waramayaa in ay haatan ka taagan tahay degmada Qoryoole ee gobolka Shabeellaha Hoose waxaana dadka ku dhaqan degmadaas ay wajahayaan xaalado isbiirsaday caafimaadka ayaa ugu daran waxaana gabaabsi uu ku yimid howlihii caafimaadka ee isbitaalka guud ee magaaladaasi kaas oo ay dawayari iyo dhaqaatiir la'aan ka jirto xaaladda Qoryoole ayaa waxa ugu sii daraysa go'doonka ay kooxda Al-Shabaab gelisay degmadaasi oo ka mid ah kuwa ugu facaweyn ee gobolka Shabeellada Hoose mid ka mid ah dadka deegaanka oo la hadlayay warbaahinta ayaa shaaciyay in muddo 7 sano ilaa iyo 8 sano ah ay wajahayaan xaalado caafimaad darro iyo kuwa nololeed intaba sidoo kale waxa uu intaasi ku daray in haweenkii ay u dhamaadeen umulbax dadkii kalena ay cudurro u dhamaanayaan maadaama uusan shaqaynaynin isbitaalka degmada dhankiisa gudoomiyaha maamulka degmada Qoryoole ee gobolka Shabeellaha Hoose mudane Sayid Cali Ibrahim oo ka hadlay xaaladaha ka taagan gudaha degmadaasi ayaa xaqiijiyay in isbitaalka guud ee ku yaala halkaas uusan haysan dawooyin qalab iyo dhaqaatiir ku filan wuxuuna tilmaamay in ay u baahan yihiin gurmad caafimaad oo degdeg ah Qoryoole ayaa ka mid ah degmooyinka facaweyn ee ku yaala gobolka Shabeellaha Hoose waxaana sanado badan gacanta ku haya ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo saldhigyo ku leh agagaarka degmadaasi iyaga oo si weyn u suga amniga guud ee magaaladaasi xilli mar kale uu burburay wada hadalkii u dhaxeeyay madaxweyne Farmaajo iyo Ra'iisul Wasaare Roble ayaa waxa arintaas sharci darro ku tilmaamay ku-xigeenkii hore ee xeerlaaliyaha qaranka Soomaaliya garyaqaan Dr. Mukhtaar Nuur Abuukar waxa uu sheegay in Roble uu galay qalad siyaasadeed oo weyn kadib markii uu ogolaaday in uu wada hadal la galo madaxweyne Farmaajo Dr. Mukhtaar ayaa sheegay in ilaa iyo hadda uu la yaaban yahay waxa meesha yaala oo ay ka wada hadlayaan Farmaajo iyo Roble sababta abuu yiri Ra'iisul Wasaaraha wuxuu haystaa laba qodob oo dastuuri ah oo cad sidoo kale Dr. Mukhtaar ayaa intaasi ku daray in madaxweyne Farmaajo waqtigiisu dhamaaday 7 bil ka hor waxa kaliya ee uu haystana ay tahay xushmad ah in uu kursiga ku simo madaxweynaha kale isla markaana aan wax shaqo ku lahayn howlaha dowladda ee socda dowladda Qatar ayaa cambaareysay weerarkii isnadaaminta ahaa ee shalay ka dhacay isgoyska Elgaabta ee magaalada Muqdisho kaas oo ay ku dhinteen 8 qof halka 9 kalena ay ku dhaawacmeen bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Qatar ayaa lagu sheegay in dowladda ay cambaarayn xoogan u jeedisay weerarkii ka dhacay bar control oo ku taala degmada Xamar Jajab kaasoo sababay dhimasho iyo dhaawac bayaankan ayaa sidoo kale lagu sheegay in dowladda Qatar ay ku celisay diidmadeeda rabshadaha iyo argagixisada wasaaradda arrimaha dibadda Qatar ayaa dhinaca kale tacsi ugu dirtay dowladda Soomaaliya shacabka Soomaaliya iyo ehelada dadkii ku dhintay qaraxan iyadoo sidoo kale caafimaad degdeg ah u rajeysay dadkii ku dhaawacmay 8 qof ee qaraxan ku dhintay waxa ka mid ahayd Hibaaq Abuukar oo ka tirsaneyd xafiiska Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Al-Shabaab ayaa si rasmi ah u sheegatay mas'uuliyadda weerarkii shalay dhacay Jumciyadda Xuquuqul Insaanka ee Djibouti ayaa sheegtay in dabayaaqada toddobaadkii hore dad badan oo rayd ah ay ciidamada nabadgelyada Djibouti ka soo qabqabteen waqooyiga dalka oo ilaa haatan meel ay ku xiran yihiin aan la ogeyn waxaana sida wararku ay sheegayaan
dadkan lagu xiray in ay qaraabo yihiin xubno ka tirsan ururka falaagada ah ee FRUD ee dagaalka hubeysan kula jira dowladda. Mahdi Samir Suge oo ah gudoomiye ku-xigeenka Jamciyadda Xuquuqul Insaanka Djibouti ayaa sheegay in arrintan ay ku raad joogaan ayna dowladda Djibouti ay ku lug leedahay. Wararka ka imaanaya gobolka Gedo ayaa sheegaya in gudoomiyaha maamulka gobolka Gedo Ahmed Boole Gareed uu xilka ka qaaday gudoomiyihii degmada Doolow Cali Faarax Mire, wuxuuna wareegto uu soo saaray ugu magacaabay Maxamed Xuseen Cabdi Lafi in uu noqdo gudoomiyaha cusub ee degmada Doolow. Warqad ka soo baxday gudoomiyaha gobolka Gedo ayaa lagu yiri dhammaan laamaha amniga waxaa la farayaa in ay la shaqeeyaan gudoomiyaha cusub ee degmada Doolow mudane Maxamed Xuseen Cabdi Lafi si uu u guto waajibaadka adag ee hor yaalla ayaa lagu yiri qoraalka. Sidoo kale wararka ka imaanaya degmada Doolow ayaa sheegaya in gudoomiyihii hore ee degmada lagu xiray degmadaasi. Sarkaal ka tirsan maamulka gobolka Gedo oo la hadlayay warbaahinta ayaa yiri gudoomiyihii degmada waa la jirdilay waana la xiray xabsi container ah oo ku yaala degmada Doolow ayuu ku xiran yahay. Wararka ka imaanaya gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in xiisad dagaal iyo hub uruursi u dhaxeeya laba beelood ay ka taagan tahay deegaanka Xanan Buure oo ka tirsan gobolka Galgaduud. Labada beelood oo muddooyinkii u dambeeyay colaad ka dhex taagneed ayaa shalay dagaal ku dhex maray deegaankaas, waxaana weli labada dhinac isku horfadhiyaan goobihii dagaalka. Labada dhinac ayaa waxaa soo gaaray gurmud xoog leh, waxaana laga cabsi qabaa in ay mar kale ku dagaalamaan deegaanka. sidoo kale dhaqdhaqaaqan ciidan ayaa socda iyadoo aysan jirin wax waanwaan ah oo laga dhex wado dhinacyada isor fadhiya sida ay sheegayaan wariyaasha gobolka Galgaduud. Diyaaradaha dagaalka dowladda Kenya ayaa xalay duqeyn culus ka furiyay deegaano ka tirsan gobolka Gedo ee koonfurta Soomaaliya sida laga soo xigtay mas'uuliyiinta deegaankaas. Duqeymaha ayaa khasaare kala duwan gaarsiiyay dadka reer miyiga ah oo ku nool baadiyaha degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo. Wararku waxa ay sheegayaan in duqeymaha oo ka dhacay deegaanada Warbeele iyo Samaroole oo ay khasaare gaarsiiyeen dadka rayidka ah inkastoo aan weli faahfaahin sugan laga helin. Sidoo kale dowladda Kenya ayaa marar kala duwan lagu eedeeyay in ay duqeymo la beegsato shacabka gobolkaas iyadoo sheegaysa in Al-Shabaab beegsanayso. Wasaaradda Duulista Hawada iyo Garoomada Dowlad Goboleedka Puntland oo ku wareejisay garoomada diyaaradaha ee magaalooyinka Garowe iyo Gaalkacyo laba bas oo ah nooca qaada macaamiisha garoomada. Garoonka General Maxamed Abshir ee Garowe ayaa waxaa lagu wareejiyay bas nooca qaadi kara 50 qof. sidoo kale garoonka Cabdullaahi Yuusuf ee Gaalkacyo ayaa waxaa lagu wareejiyay bas qaada 50 qof iyo motor weyn oo 160 kVA ah kaas oo korontada garoonka wax weyn ka bedeli doona. Antaaseen ku soo afmeerin markaad kala socotaan Samarayb TV inta warkan war labadan kulmo doona waxaa idin kaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo.